ciida waxa lagu ciidaa guriga laana waxa jiro cudur coronavirus. Abubakar Cabdi Duqow oo ah aabba ka mid ah Soomaalida degan Pretoria West caruurtiisa ayuu ugu laabqaboojinayaa inay farxadda ciida ku qaataan gurigooda. Cudurka COVID-19 oo ku dhacay in ka badan 20,000 oo ay Soomaalida ku jirto dalkan Koonfur Afrika awgiis. Soomaalida degan Koonfur Afrika oo saameyn weyn ku yeeshay cudurkan coronavirus-ka xagga noloshooda iyo dhaqaalahooda ayaa ciidan waxa ay kaga duwan tahay ciidihii hore bandow ka jira dalka. Isu imaatanka dad badan, goobaha cibaadada ayaa la mamnuucay. Maqaaxidaha iyo dukaamada dharka lagu iibiyo intooda badan waa ay xiran yihiin. Taa ayaa saameyn weyn ku yeelatay maalmaha ciida oo laga dareemi jiray saxmad badan. Caruurta oo xilliyada ciida heli jireen fursado waalidiinta ay ku geeyaan meelaha caruurta lagu ciyaarsiiyo amaba loo geyn jiray caruur kale oo asaagooda si ay ula ciyaaraan ayaa sanadkan ku dhex ciyaaraya guryahooda. Gurigaan iska jirnaa ciidan iyo ciidii horeete way kala duwan tahay because ciidii horeete waa meel baa la aadi jiray, ciidanna corona jiro guriga la iska fadhiyaa. Hooyooyin badan ayaa iyana ka niyad jabsan saameynta uu cudurkan coronavirus-ka ku yeeshay damaashaadka ciida. ciidii hore ciidan wax badan oo kala duwan ciidan guryaha lagu ciidaa ciidii horena magaalada lagu ciidaa. ciidii hore ciido farxad la damaashaad tagayo oo banaanka iyo ummadda Ilaahay la is arkayo oo ummadda la soo farxayo la soo salaamayo la soo arkayo ahayd balse ciidan wallahi aad bay u kala duwan tahay. waxaana koosgareeyay cudurrada hadda sanadkan qabsaday ummadii iyo dalkii iyo caalamka qabsaday baa koosgareeyay. marka waxaan leenahay ummadda islaamka meel walba ay joogto Ilaahay ha ka badbaadiyo. Cabdisalaan Khaliif waxa uu ka mid yahay jaaliyadda Soomaalida ee Pretoria. idii hore ciido waxay ahaayeen masaajidada lagu tukado oo dadku ismarxabeeyaan oo dadku isbooqdaan oo dadku siyaartaan oo la tamashleeyo oo ciyaalka iyo xaafadaha la soo salaamo. laakiin ciidan wax masaajid lagu tukadayna ma lahan, wax maaragtay qaraabo salaan oo la isku aadayana ma lahan. in walba gurigiisa ku tukadaa, meelaha la kala taagtaagan yahay laba iyadoo waliba la ilaalinayo distantigii loogu talagalay halkii mitir. Sheekh Ibraahim Xirsi waxa uu ka tirsan yahay markaska Imaam Bukhari ee Pretoria West. waxa uu ka sheekeynayaa ciidan sida ay kaga duwan tahay ciidaha hore oo lagu oogi jiray salaada ciida masaajidada. wuxuu nagu yeeshay coronavirus in aanu xidhnay markiskan 26 bishii March 2020 ilaa maanta oo ay tahay bisha 23 ama 24 May 2020 uu xidhan yahay. dalka iyaga aan maanta joogno oo South Africa khaasatan Pretoria markiskan aan joogo weli waxaan maqanaynaa heerkii saddexaad. dadka muslimiinta ee dalkan Koonfur Afrika ayaan weli ciidin iyadoo lagu jiro maalinta labaad ee Ciidul Fitriga. inkastoo Soomaalida ku dhaqan dalkan Koonfur Afrika ay badankoodu maalinka labaad ku ciidayaan guryahooda. xiliyadan oo kale maalmaha ciida salaada ciida waxa lagu oogi jiray masaajidada uu ka mid yahay masaajidka Imaam Bukhari ee Pretoria West iyagoo ay ku tukan jireen boqolaal Soomaali u badan iyo muslimiin kale. balse iminka taa way ka duwan tahay oo masaajidka waxa uu xiran yahay muddo ka badan 2 bilood. waxa uu saameyn ku yeeshay cudurka coronavirus iyo bandowga uu madaxweynaha dalka Koonfur Afrika ku soo rogay meelaha ay ka mid yihiin goobaha cibaadada. Cabdulqaadir Axad Dhaqane, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Pretoria.